maanta waxaan idin la wadaagi doonaa qiso aad u yaab badan. Qisadan ma ahan mid khiyaali ah, waa qiso xaqiiq ah. Sababaha aan idinku soo gudbinayana waa inay waana dhammaanteena noo noqoto. Qisadan waxaa ka sheekeeyay ninka qisadan ku dhacday saaxiibkiisa oo qisadan kadib ka tooba keenay wixii xumaan ah ee uu hore u geysan jiray, asigoo toobadiisa kadib dib u wanaajiyay acmaashiisa wanaagsan. haddaba intaynaan muuqaalkeena u gudagalin, waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada si ay wacdi iyo waana ugu qaataan qisada dhexdeeda. qofka qisada ka sheekeynayay ayaa qisadiisa waxa uu ku bilaabay sida tan: waxa aan saaxiibo ahayn wiil, waxa uu jeclaaday gabar, wuxuuna jeclaaday jacayl aad u daran. jacaylkaasi oo loo qaado qof bashar ah ama bini'aadan. jacaylkii ugu weynaa ayaa ku dhashay wiilkaasi. waxa uu bilaabay wiilkii in jacaylkiisa ay ka wada sheekaystaan telefoonka maalin kasta. waxa uuna mar kasta ka codsan jiray inay waqti isla qaataan oo ay xumaan sameeyaan. gabadhii waa ay diidi jirtay mar kasta, sababtoo ah gabadhu waxay ahayd mid xishood badan, sidoo kale waxay ahayd gabar dhowrsoon oo iimaan leh, kuna weyn islaamnimada iyo sharafteeda. nafteedana waxay raali kaga noqon weyday in rabbigeeda ay dembi ka samayso iyadoo ka faa'iidaysanaysa raaxadan yar ee adduunyada taal. wiilkan waxa uu u tagay gabadha waalidiinteeda si ay ugu guuriyaan gabadhooda, laakiin waalidiintii waa ay ka diideen inay u guuriyaan gabadhooda. wiilkan waxayna ku yiraahdeen, anagu waan ognahay adigu waxaad tahay qof aad u xun, adiga ma adeecsanid rabbigaaga, gabadheena akhlaaqdeeda iyo adiga akhlaaqdaadana isma lahan. wiilkii waxa uu siyaadsaday cabista khamriga, sidoo kalena waxa uu laba jibaaray macaasidii uu samayn jiray iyo dembigiisaba. waxba kama uusan tagin, xitaa daroogooyinka dhammaantood waa uu wada isticmaali jiray. sidoo kale habeen iyo maalin waxa uu ku wareegi jiray gabadha gurigooda, taasi oo ay ahayd inuu arko xitaa gabadha uu jeclaa bidhaanteeda, kamana uusan waantoobin inuu alle ku caasiyo wiilkii waxa uu la noqday jacaylkeedii mid waali ah. gabadhu da'deeda aad bay u yaray. maalin maalmaha ka mid ah, gabadhii waxaa casiibay oo ku dhacay qadartii alle, waa ayna dhimatay. waalidiintii dhalay gabadha aad ayay uga naxeen oo ayna uga argagaxeen, aad ayayna uga murugoodeen dhimashada gabadhooda. wiilkii gabadha jeclaa waa uu ku farxay farxad xad dhaaf ah. waxa uuna u tagay saaxiibkiisa, waxa uuna ku yidhi, saaxiib, ma maqashay in saaxiibtayda ay subaxdan dhimatay? waxa uuna ku yidhi, samir iyo iimaan allaha kaa siiyo, allana ha u naxariisto. markaas ayaa waxa uu ku yidhi, adiga kaama doonayo samirsiin. saaxiibkiisii ayaa ku yidhi, waxaan fiiriyey indhihiisa, waxayna u ekeeyeen indho shaydaan isoo fiirinaya oo kale. waxa uuna ku yidhi, maxaad ku fakiraysaa saaxiib? waxaan arkay asigoo wejigiisa farxad ka muuqata, asigoo dhoola caddaynaya iigu yidhi, maanta waa maalintayda, caawana waa habeenkii. markaas ayaa saaxiibkii ku yidhi, maxaad ula jeedaa? waxa uu ugu jawaabay, waxaan caawa jacaylkayga la wadaagi doonaa wax aysan intii nooleed aysan arkin. saaxiibkii ayaa qoslay, waxa uu yidhi, ma waalatay mise aniga ayaad iwaali rabtaa oo aad igu ciyaaraysaa? markaas ayuu ugu jawaabay, maya wallaahi ma waalan, mana kugu ciyaarayo, ee waxaan rabaa inaan u sameeyo wax aysan nolosheedii hore aysan u samayn. saaxiibkii ayaa yidhi, maxay yihiin waxaasi? waxa uuna ku yidhi, waxaan ku samayn doonaa wixii nin naagtiisa ku samayn lahaa. markaas ayuu saaxiibkiisii ku yidhi, asigoo codka kor u qaadaya, sidee? waxa uuna ku yidhi, waxaan raacayaa meydkeeda. marka ay dadka ka soo tagaana waxaan ugu dhexgalayaa qabrigeeda. markaas ayaan jacaylkaygii u tagi doonaa sidii aan u jeclaa markii ay nololeyd inaan ugu tago oo kale. saaxiibkiisii ayaa yidhi, ilaahay ka cabso, aniga iyo adigaba wax badan ayaan macaasi galnay. maanta adigana ma waxay macaasida kula gaadhay in meyd qabriga ka soo bixisid si aad macaasi ugu samaysid? waxay ahayd gabar dhowrsoon, xishood badan, waana aqaanaa dabeecaddeeda. ma waxaad ku xadgudbaysaa sharafteeda kadib markii ay dhimatay? weligeed jirkeedii hore ayagoon u arag nin kale
ma waxaad rabtaa inaad qabriga aad ugu daba tagto si aad sharafteeda ugu ciyaarto? Waxa uu wiilkii ugu jawaabay, iga fogow, hana ila hadlin, hana ila saaxiibin. Saaxiibkii ayaa yidhi, waxaan u baqay saaxiibkayga, aniga nafsadayda ayaan u cabsaday. Intaas kadib waxaan raacnay janaasadii. Dadkii ka soo qayb galay aaska oo dhan waxaa indhahooda ka muuqatay murugo, laakiin saaxiibkaygii waxaa indhihiisa ka muuqatay farxad iyo raynrayn. qalbigana waxa uu ka lahaa, waad mahadsantihiin, waxaad ii keenteen caruusadayda, waxaad ii keenteen meel cidla ah, qofta aan aadka u jeclaa, aad ayaad u mahadsantihiin. Gabadhii waa la aasay, dadkiina waa ay u duceeyeen, maxaa yeelay waxay ogaayeen gabadhan wanaageeda. Saaxiibkii qisadan ka sheekeynaya ayaa yidhi, waxaa wada baxay dhammaan dadkii halkaasi joogay, waxaa isku soo haray aniga iyo saaxiibkayga. Waxa uu bilaabay inuu qabrigii qodo, anigana waxaan qabtay gacantiisa, waxaana ku yidhi, jooji waxaad samaynaysid ee Ilaahay ka cabso. Waxa uuna igu yidhi, iga fogow, haddii kale meedkaaga ayaan halkan dhigi doonaa. Waxa uuna ii soo baxsaday mindi af badan, waana ka baqay oo waan ka fogaaday. Waxaan bilaabay inaan meel fog ka daawado waxa uu shaydaankan ku samaynayo iyo xaalkiisa halka ay ku dambeyn doontaba. Waxaan arkay arrin yaab badan. Waxa uuna bilaabay inuu qabrigii qodo ilaa uu ka soo saaray meydkii. Waxa uu bilaabay inuu karfantii mindidii uu haystay kaga jeexjeexo. Waxa uuna isku dayay inuu sharafteedii ku xadgudbo, laakiin Allah ayaa ka hortagay shartiisii shaydaankan. Waxa uuna Alle u soo diray malakul mawd oo halkii ayuu ku dhacay oo naftii looga qaaday. Allena waa uu xifdiyay sharafta gabadhan muslimadda ahayd markii ay nooleed sharafteedii ilaalisay. Saaxiibkii ayaa yidhi, waxaan sii eegayay saaxiibkayga asiga oo wejigiisa isbedelay, halkaasina ruuxdii looga qaaday. Dadkii markii aan ku wargeliyeyna aad ayay uga naxeen oo uga shallaayeen. Haddaba ina aadanow, adduunkan waa aad ka tegaysaa, waxaana lagugu caasi doonaa ciidan aad xumaanta ku dul samaynaysid. Si kastoo aad awood u leedahay, awooddaada tan Alle ayaa ka weyn. Alle ka baq, Allahaasi oo nool ee aan dhimanayn. Wiilkii ayaa hadalkiisa waxa uu ku soo gabagabeeyey, waxa aan sheekadan la wadaagay oo aan uga sheekeeyey caalim culimmada ka mid ah. Halkaas ayaana anigana ku toobad keenay. Intaas ayaan muuqaalkeena maanta ku soo gabagabayn doonaa. Haddaba haddii aad dhamaysatay muuqaalka, lana wadaag asxaabtaada si ay waana ugu qaataan. Mahadsanid.